Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Magacayga waa Siyaad Shaale. Waxaan ahay isku duwaha xiriirka bulshada ee dugsiyada dadweynaha Lewiston. Halkan waxaan uga hadli doonaa sida loo isticmaalo talking points. Waa maxay talking points? Talking points waa app macallimiinta iyo waalidiinta ay ku wada xiriiri karaan. Waana app mataqaanaa turjumaya fariinta macallinka markuu kuu soo qoro. Adigana sidoo kale fariintaadana appka ayaa turjumaya. Sida hadda sawirkan halkan aad ku aragtiin, macallinka ayaa fariinta soo qoraya, appkana isla markiiba ayaa turjumaya oo luqadii adiga markaad aragtid ayuu ku turjumaya. Markaad fariinta hesho, macallinkana waad u jawaabi kartaa. Luqadaada ayaad ugu jawaabi kartaa isla markiiba appka ayaa u turjuma macallimada. Marka fariimaha haddaad rabto English waa ku diri kartaa, laakiinse fadlan la socodsii macallimada mise macallinka luqadda aad doonayso inaad ku hesho fariimaha. Sidee lagu heli karaa appkan? Appkan waxaad kala soo degi kartaa App Store haddii aad iPhone haysato, ama Google Play haddii aad Samsung haysato. Halkan waxa aan ku qoray waa xiriiriye waaye. Xiriiriyahaas markaad isticmaalayso ood geliso ood raadinayso waxaad fiirisaa sawirkan. Marka waa laba qayb waaye, mid loogu talagalay macallimiinta iyo mid waalidka loogu talagalay. Sidoo kale App Store markaad kala soo degayso mar walba fiiri sawirkaas. Marka ugu hore aad galayso appkan mise aad isticmaalayso appkan, waxaad arki doontaa shaashada xiga sawirooyinka ku qoran ayaad arki doontaa marka ugu horeyso aad la soo degto appka oo aad furtid. Marka sawirooyinkaas haddaad rabto waa fiirin kartaa, haddaad rabto waa ka gudbi kartaa. Qaybta kore oo ku qoran skip ayaad taabanaysaa badhankaas markaad ku dhufato shaashada xigta kuu gudbinaya. Sida hore baan kuu sheegay, markaad soo dejisato kowda hore wuxuu kuleeyahay kusoo dhawow talking point uu kuleeyahay. Wuxuu halkana ku sheegayaa markaad isticmaalayso talking points fariimahaaga waad u diri kartaa macallimada, adigana sidoo kale waad heli kartaa fariimaha macallimada ay kuusoo dirto. Halkan waxaad kala soconaysaa isbedelada ka socda galaaska iyo wixii kusoo cusboonaada kala soconaysaa markaad isticmaalayso appkan. Waxaa kaloo ugu muhiimsan waxaa waaye ubadkaaga macallimadiisa mise macallinkiisa ayaad la xiriireysaa ood iska warhaynaysiin. Markaad la soo degto waxaa lagaa codsanaya inaad telefoonkaaga geliso. Halkaas ayaad telefoon lambarkaaga gelinaysaa si loo xaqiijiyo telefoon nambarkaaga. Email haddaad leedahay email khasab ma aha, waad ka gudbi kartaa. Haddii aad rabto inaad gelisana waad gelin kartaa, ilaa muhiim ma aha inaad geliso. Markaad telefoon lambarkaaga geliso waxaa lagu soo dirayaa 6 nambar lagu soo 6daan nambar waa furo waaye. Furahaas 6daan nambar halkaas aad gelinaysaa si haddana mar labaad loo xaqiijiyo telefoon lambarkaaga. Markaad la soo degto oo furahaas geliso halkan qaybtan aad imaanaysaa. Marka qaybtan waa waxaa la dhahaa profile setting ayaa la dhahaa. Waa goobta aad ku gelinayso mise aad ku kaydinayso magacaaga, telefoon lambarkaaga, luqadda aad doonayso inaad ku heshid fariimahaaga iyo email address. Marka mar walba waxaad taabsanaysaa meesha qalin ahaanta oo sawiran ayaa taabanaysaa. Marka waad buuxinaysaa. Marka waxaa lagaa codsanaya inaad dhamaystirtid. Halkan hoosena waxaad ku qoraysaa carruurtaada magacyadooda ayaad ku qoraysaa. Halkaasaad ku qoraysaa. Haddii hal arday uu yahay halkaasaad ku qoraysaa. Haddii hal iyo wax ka badanna waad sii wadaysaa, halkaasaad kusii qoraysaa. Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay soo geliyaan markay profilekooda hagaajisanayaan inay soo geliyaan sawirkaasoo uu ku jiro waalidka iyo ubadka iskula jiraan si macallimada mise macallinka uu aqoonsado. Sidaas ayaa mataqaanaa waalidiinta lagu dhiirigelinayaa. Qaybtan xigana waxaa waaye markaad ku biirayso class. Ardaygaaga markii class lagu daro halkan ayaad ka arki doontaa classada uu ka mid yahay halkan aad ku arkaysaa. Haddii aad doonayso inaad adiga class ku biirtid waa in aad codsataa 6 lambar haddana oo lagu galo oo furo waaye. Furahaas adigoon haysanin ma geli kartid classkaas. Marka macallinka mise macallimada waa inaad ka codsataa furahaas si oo mataqaanaa ubadkaaga loogu soo diro classka.
halkan qaybta xigana waxaad ka arki doontiin ardayda markaas macalimadda ay kusoo dareyso mise ay rabto inay galaaska ku biiriso ay halkan ka arkaysaa markaad mataqaanaa furaha macalimadda ay ku siiso halkaasaad gelinaysaa koodhkii oo 6 ah halkaas markaad geliso waa dhamaatay appkii marka isticmaalkiisa ayaa kuu bilaabaya qaybtana waxaa waaye markaad doonayso inaad fariin u dirto macalinka halkan hoosaad imaanaysaa halkaas hoosaad gujinaysaa macalinkii mise macalimadii ayaad halkaa ka dooranaysaa haddii uu maamul yahay haddii macalin ubadkaaga uu yahay halkaasa ka dooranaysaa marka fariimahaaga markaad diraysid waxaa kaloo waalidiinta loo sheega inay ku dari karaan sawir ama muuqaal duuban haddii ay doonayaan waalidka inay macalinka u diraan wixii su-aala ama cabashooyina fadlan lambarkan soo wac lambarkan waxaa loogu talagalay waalidiinta af soomaali ku hadla ayaa lambarkaas loogu talagalay waa 844 969 22 16 lambarkaas ayaad wacaysaa si lagu caawiyo haddii aad doonayso furaha lagu galo talking points mise haddii su-aal kale aa qabto lambarkaasa soo wacaysaa marka insha allah saas ogaada khayr baan idin rajeynaa asalaamu calaykum